oo iyadoo waxa marka waxa hor la garka iyo hala kala saaro iyo mataqaano waxyaalaha ka socda wadanka qofka waxa laga yaabaa garka markuu la baxay inuu isleeyahay nabiga kaleey salaatu kaga dayo ama ismada nabiga kaleey soo qaadaba leedahay laakiin qofka khalad waa ka dhici kara qofka isagoo diintii maartay baranaya ama diinta ku taagan khalad sameeyo qofku ma aha qof maartay macsuuq qofku ma aha abti qaniisad ogtahay adeerkii cali dhoox wajiga uu xiran jiray wadaadadan hadda wajiga xiranaya ee wajiga duubanaya iyagu xagee ka keen diinta sax xagee goormay soo gasheen ma jireen saxaabiyo hore dad wajiga xiran jiray wallahi runtii dadkale saxaabi u tiirmeen laakiin waxa laga yaabaa Soomaalida inay dhaqan u leedahay laga yaabaa hadda saas sheegtay calluhu xiran jiray sidoo kale keenadina waa arkay xiran jiray marka waxa laga yaabaa qofka duulan qaado isqarnaa inuu xirto laakiin ma oran karno waxaan diin bay kala yimaadeen ama maaragtay asalka waxa ku leedahay diin bay asal ku leedahay ma oo waa gartay waa jason wax soo baxay way faash aan kolka qaadana diila wadolka halo assalaamu alaykum walaalkiis ku soo dhawo barnaamijka waa dhawahay waan salaamay adiga sheekhu waan gartay walaalkiis waxa weeye wajiga la xiranayaa iyo culimada hadda waxa weeye horta culimo ma aha waxaan ka hadlayaa ragga maaragtay ka dagaalamaya koonfurta waa gartay bal oran karaa raggan waxa weeye diin iyagu ma fidinayaane waxay u socdaan waa maaragtay madaxtinimo ama kursi waa gartay maxaa yeelay culimadii caadiga ahayd oo dasheekhu isugu sheegay waagii xamar ee gobolladoo dhan ka timid arrimo badan bay soo jeediyeen culimadaas culimo caadi ahaan oo maaragtay qodobaday soo jeediyeen dawladdii iyagu waa isku afgaran kareen laakiin waxaa la oran karaa wax walba jebinaya maaragtay raba inay iyagu meesha qabsadaan oo xukun raadinaya raadinaya waa gartay walaalkii adoo mahadsan su-aasha aad qabto walaal adoo mahadsan baarak allah fiik yani oran karaa runtii markaynu xaqiiqada ka hadalno markii anigu aanan ku qanacsanayn maamulka aan ku qanacsanayn oo aan duulaan kugu soo qaado taa macnaheedu waa iska tahay maamulkaaga mar rabaan maamul samaysanayo iska tahay marka yani su'aalaha badan marka la isweydiinayo ma kursi bay rabaan iyo waxa moodaa xogaa inay iska noqon tahay laakiin waa iska cadahay maadaama aan anigu maamulkaaga u baahnayn talaada u baahnayn waxaan kula dagaalamayo wax kala ma waa in anigu meeshii maamulo weeye marka taar waxa waa iska fahmi karaa insha Allah maamul bal isku haysto way aan kolka qadan waa gartay fadlan hadda doonayso doodan inaad ka soo qayb gasho soo wac 6127460553 ku saabsan arrimaha Soomaaliya ka dhacaya maxay diintu ka qabtaa oo runtii aan ku soo cabsanay Siriyooga Sheekh Cabdi Qani Qardaawi aan ku soo cabsanay fadlan doodaasi ku soo dhaw barnaamijka Allo assalaamu alaykum السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله سودو. سودو. وان قلت ولا. أما يولا وكم مغلى سفع ما كم مغلىنا. سفع ما كم مغلى ولا. الله. وقت نجرها لو أخذت تلفونك ونجح حقوقنا دراتيس. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أديك ما حسن كسر الاستوديو. أوكي. نيو أديكو حلبين على الوقت. سؤال شاغب. ما كان محبين تلو شيء لهم أو أما لغة كلنا جروب كان استدعاء. قالوا لي هذا لمن كان والشباب هو دولتي هو وشي وحصل السكوير. وقت لك ولكن ستة الله كبحين قلنا اللي هذا الله سنة والجماعة يقلب تقول وحاجة وقتكتي اللي تقالوا ماشي كلية ما كلية الشباب يدوروا دين تقالوا من كان واحد من سنة واحد ما عدالة جروب في خلدن لكن هذه اللي خلدن ما ماشي جروب وقت عيا لكن وأنا من سنة إن هالجروب في خلدن أو إذا كنا نقدم هالجروب في ودان وكوي بس لا ولا وقرت انت هذا لايك بخن ادو ما سن جروب كي قلدن بس لا ادو وقرت اد بمسين بارك الله فيك انيو waxa moodaa saan hore u tilmaanay dadku waa iska xamaasanayeen waxa laga yaabaa dadka badanaa maartay su'aalaha wajinaya inay qolo la jiraan ama qolo ka soo horjeedaan badan waxa fiican markii dood cilmiyeed ama laga hadlayo qofku maartay dhexdhexaad inuu iska fiican ummadda maanta gudaha ku diraysa muslimiinta dhamaantood weeyaan laakiin saan u sheegnay waxa weeye ummad Ilaahay subhanahu wa ta'ala imtixaamay weeyaan waxa laga yaabaa dadka culimada ahi oo yaani magaca culimada isticmaalaya inay maslaxa u arkaan
inay ku fikirayaan waxaan haddaad samaysaan maslaxa ku gaaraysaan laakiin way khaldami karaan qofku wuu khaldami karaa qofku wuu saxsami karaa qolo dawladda oo kale waxaa laga yaabaa inagu hadduu waxyaalo badan ay samaynayaan khalad ay samaynayaan inay isleeyihiin ama maslaxa ku gaartaan oo maslaxa ku heshaan marka anu waxaan oran lahaa runtii aynu u noqono aynu idhaahno ummadda maanta waa baaba'da dadka islaamka ana waxaa la doonayaa bal inaynu dhiigooda kala badbaadino oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markii nabiga calayhi salaatu noo sheegay qofka muslimka ahi ee sharafta uu leeyahay wuxuu hataa tusaale ku soo qaatay haweeney يعني نار كوكشي بصدق حرتي كليه بصدق حرتي بنار كوكش قلبي كو حرتي ما اي فسحين انتم مسين يدنا مسين بناك او مسدين سي ميشو كو خيرناد باي دمتay naar bay ku gashay arinka wuxuu tusayay yani maadaama xayawaankii la cadibay naar lagu galaayo dadka muslimiinta oo la cadibay baa ka sii daran marka meesha arinta la waxa ummadda waa la cadibaya cadaab baan ugu socota adduunkeena iyo aakhiradeena waxa moodaa in la anahay war dadka meel intay isugu yimaadaan khaladaadkooda inay saaraan baa fiican runtii anu waxaan awl cambaarayn jiray oo aan la diriri jiray maamul goboleedyada waxaan oran jiray ummadaan mataqaanaa waxay ka talinaya isticmaalka shaqadiisa wadaan laakiin waxaa moodaa ummad walba reer walba maanta hadday ka soo bilaabaan gurigooda oo ay ka taliyaan oo ay samaystaan nabad samaystaan hadhow meel waa la isugu imaan karaa وقت عبد الغني أدب مصنع كولشين أدب بديه فضل كسر غيب الضوضن قروح بدل ما تهلكنا عن كوهين ويكسر سنة رمها سوماليا كسعودة دينته وحي كقبته 612-746-0553 سؤاشنا فضلا هذا سؤال قبته هوريك ويدي سؤاش ووقت ورقيني وحنوهر إلا يتوان تدعو سؤاش قادم هلو السلام عليكم عليكم السلام والله الأدب ومحسن سؤاش أدو قبته عبد الغني يدمان سومالي دا ما ديبيت كنا دادك غيب جلس كسره وايدين سلامي marka su'aasha qaw waxa way dadkan oo maxay diin qabto ma jirto ina maxay oo bab lagu xiro qof bilaadan oo la dhahayo dadka laayna qarshi oo nasiibkiisa uu kuwaynayo qofkaas muslimna ma gaalana ma ahan diin gaalana ma qabto diin muslimna ma qabto qofkaas nuuxo ku giyama ku taabka ilaahay marka inta kan xeekan ku dadkan waayidin salaam بارك الله فيك يعني waxa gabadhu ka hashay qarxintan culimada waaweyn oo maanta Soomaaliya runtii maanu dad tilmaamay laascaano ee dowladdan lagu qabtay waxa aad looga hadlay waliba sheekh Bashiir oo dalada culimada madaxda u ah ayaa wuxuu ka hadlay isqarxintan wax leedahay waliba waxa aad ugu dheeraaday warjahad maxaa la yiraahdaa jihaadku waa wasiilo lagu gaaro wanaag lagu gaaro hadii maanta wasiiladii يعني wanaag lagu gaari lahaa meesha ka baxdo adoo mahadsan sheekh Bashiir markuu laascaanood oo nabada ku qabanayo xamar baa lagu dhimanaya lagu baabaya soo xamar ma inuu ku qabso meesha dhibka ka taagan yahay laascaanood waa nabad already dadkii nabad bay haystaan waxaan daan tilmaamay waxa aad iyo aad loo isticmaalaya wasaa'ilkan iclaamka loo yaqaano ama waxyaalaha media loo yaqaano umada gaarsiiya anigu website xamar laga maamulo oo laga leeyahay xamar laga leeyahay waa anigoo Mareykan jooga muxaadarooyinka ka dhacayay laascaan kala socod markii website soo galiyaan aan kala baxay marka waxaan oran lahaa wuxuu ka hadlay isqarxintaan maantay waxa hada ku soo gabagabeeyay isqarxintaan ummad muslimiin dhexdooda isku qarxinayo hadda wixii ka dhacay meesha la yiraahdo beledweyne oo kale oo laga yaabo in qof loo socdo la dilo laakiin intaas oo yaani qof ay ku dhimanayaan waxa weeye wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala isku wadinay weeyaan dadkaas meesha soo galay waxa laga yaabaa in dad masaakiin ku jira u yimid meesha cunto ka cunaan waxa laga yaabaa dad banaanka jooga wax ku gadanaya inay ku dhinteen sida la sheegay marka ariga isqarxinta la yiraahdo walaale wax aynu maantay diinteena ku tabiqi karno oran karno waa wax sax weeyaan waxyaalaha xamar lagu taageeri karo la oran karo isqarxin baa wacan la oran karo wax meesha in laga saaro baahan weeyaan oo aan suurtoobeen oo maanta xaalkaan baxsan yahay waliba inay noo sii siyaadiso dhimasho iyo geeri iyo isxumaan maahna wanaag kale ma keenayso jihaadkuna waxa loo galaa waxa weeyaan in hadhow wanaag lagu gaaro oo wanaag la helo marka xaaladan Soomaaliya ka socota runtii waa saashay tawar arrin farqa bax weeyaan waa gurtay aad baad maasantahay doodana qaadano hallo assalaamu calaykum السلام عليكم walaal adigoo maasan waqti waan ugu yeeray su'aal qurux badan dadweynaha dhan runtii ay ka faa'iideystaan fadlan soo daa walaalkiis si fiican ma ku maqan walaal horta marka askar iyo sheekh horta salaam taraadi ku salaamaya assalaamu calaykum waraxma waan gartay marka labaad waxa weeye horta anigu wax su'aal ma qabo laakiin waxaan rajaynayaa inaan ra'yigayga iyo meesha ka dhigto oo absolutely soo dhaw ra'yigayga macnaha waxa weeye nimayo ama Soomaali annagoo dhan wadankeeni iyo waan u jeednaa dabcan waxa ka dhacayo marka hal arrin hadii la yiraahdo waxaan aaminsanahay wanaag wala gaari lahaa arrintaas oo ah inaan bal horta runta aan isku sheegno ama aan sheeqinaano ama dacamaana ama aqoonyahanaano qof walba macnaha ra'yigiisa oo sax ah wuxuu aaminsan yahay inuu sheego ya absolutely macnaha tahay qofka afka wuxuu ka sheegay wuxuu uurka ka qababa inay isku mid afta noqdaan arrintaas anafta Soomaalida u gudbin lahaa qodobkayga labaad aan jeclahay inaan dadka la sheegareeyana waxa weeye warnimayo wadankeena waan kasoo tagnay wadan qurba waa nimi Mareykan si fiican buu noo soo dhaweeyey wadankan inuu soo dhaweeyey si sharaf leh oo ixtiraam leh oo wanaag leh oo aan ku tixgelinayno dhaqankooda iyo sharcigoodana aan ula dhaqanno
midda kale waxa weeye ilaahay anagoo dhan maaragtay waa gartay walaalkiis waa weydiisanayna aad baan umahadsantihiin waa gartay walaalkiis aad baad umahadsantahay kolka kala qaadana halo salaamu calaykum salaamu calaykum السلام عليكم walaal adoo mahadsan soo dhowow سؤال قبا waa gartay soo daa walaal si fiican baan kuu maqalnaa walaasada Soomaaliya maxaa laga hadlaa masaajidada miyaad isku yaalaha waxa loo tagayaa mid walba qabiil waa gartay aad baad umahadsantahay cabdiqari arrintaa maxaa ka baarak allah fiik runtii qabiilka waxa loo isticmaalo ama qabiilada labay kala tahay markaan diin ahaan u fiirno qabiilku waxa loo yaqaan qofku inuu qabiilka sheegto wariya ninka la Cabdi Maalik la yiraahdo waa nin reehab weeyaan laakiin ama hadii la isku xumaynayo qabiilad baa la yiraahdaa masaajidada marka magaalada